aqalka dowladda hoose xamar maamulka sare gobolka banaadir uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir shirkan ayaa waxaa loogu hadlay sidii bilicda iyo nadaafada magaalada muqdisho dib loogu soo celin lahaa maadaama maalmihii u dambeeyay toddobaadadii u dambeeyay magaalada ay ka daayeen roobab mihigaana kuwaas oo sababay arrimaha la xiriira nadaafada biyo ay dhigeen wadooyinka iyo waliba bilicda oo ay wax u dhimeen si loo dardargeliyo nadaafada bilicda waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho soo saaray wareegto ku aadan dardargelinta nadaafada iyo dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho taasoo ku socota agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafada gobolka banaadir sidoo kale ku socota gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ku socota dadweynaha ku nool degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ku socota waaxda nadaafada dowladda hoose xamar ku socota taliska ilaalinta deegaanka xamar og agaasimaha waaxda xiriirka ee degmooyinka gobolka banaadir og afayeenka gobolka banaadir og xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee nambarkiisu yahay nambar 6 soo baxay 12 bisha 1980 markuu qiimeeyay xaaladda nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho markuu garwaaqsada baahida loo qabo in isbedel la taaban kara laga sameeyo nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho markuu tixgeliyay tala soo jeedinta agaasimaha guud ee bilicda iyo soo celinta nadaafada ee gobolka banaadir wuxuu soo saaray go'aamada soo socda qodobka koowaad wargelin laga bilaabo maalinta go'aankan la saxiixo waxaa dhammaan mas'uuliyiinta sare ku xusan oo ay warqadana sida toos ah ugu socoto lagu wargelinayaa in gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho go'aamiyay in la dardargeliyo nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho laguna sameeyo isbedel la taaban karo waxaa la farayaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo waaxda nadaafada dowladda hoose xamar in si degdeg ah loo dardargeliyo howlaha nadaafada caasimadda magaalada muqdisho qodobka labaad sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa cid kasta oo ku xadgudubta nadaafada magaalada kuwaasi oo muteysan doona ganaaxyada soo socota ganaaxa guryaha guri walba oo ku yaala magaalada muqdisho ee ku xadgudba nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho waxaa la ganaaxi doonaa $20 oo ama lacag u dhiganta oo ah shilinka Soomaaliga ganaaxa goobaha ganacsiga sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada muqdisho cid kasta oo ku xadgudubta nadaafada iyo bilicda waxaa la ganaaxi doonaa lacag $30 ah ama lacag u dhiganta shilin Soomaali ah ganaaxa gaadiidka lagu dhaqo wadooyinka iyo kuwa baarkinada iska dhigta iyaguna waxaa la ganaaxi doonaa $20 ama lacag u dhiganta shilin Soomaali ah sidoo kale wixii hadda ka dambeeya waxaa xoolaha baadida ah ee lagu soo qabto magaalada gudaheeda laga qaadi doonaa ganaax iyo calafka xoolaha muddada la hayo waxaanu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyay dad si gaar ah ugu ganacsada xoolaha ay magaalada ku soo deeyeen xoolaha lo'da ama geela ama eriga kuwaas oo dhibaato xoogan oo dhanka bilicda iyo isu socodkaba ku haya magaalada muqdisho sida awgeed xoolaha baadida ee laga qabto magaalada waxaa la ganaaxi doonaa neefka geela $25 ama lacag u dhiganta shilin Soomaali ah neefka lo'a sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa lacag $20 ama lacag u dhiganta shilin Soomaali ah neefka ariga ahna sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa lacag $10 ama lacag u dhiganta shilin Soomaali ah qodobka saddexaad fulinta amarkaani waxaa amarkaani fulintiisa iyo dabagalkiisa u xilsaaran agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafada gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka banaadir iyo taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar qodobka afraad saxiixa xeerkan wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waana uu saxiixay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish aad u mahadsantahay